kalsoonida naftu waxay ka mid tahay dabeecadaha ugu badan ee aadamuhu janto isugu faano ama jecel yahay inuu barto. Laakiin waxaa jira dabeecado ay xeeladayaasha cilmi nafsiga sheegeen inay burburiyaan kalsoonida ay tahay inay nafteenu ku qabno dhaqanno dilaya qabkeena iyo aqoonsiga heerka nafteenu joogto. Dhaqamada noocaas waxaa ka mid ah 1. cudur daarashada badan. Inaad raaligelin ka bixiso gafkaaga iyo gaabis kasta oo ka yimaada waxay ku timaadaa kalsoonida aad isku qabto. Laakiin ogow in raaligelinta qodheeda oo aad ku tarax tagtaa ay tahay cudur burburinaya kalsoonida naftaada. Iska jir ku celcelinta isticmaalka ereyada raaligelinta ah haddii aad ballan ka daahday, haddii howl lagaa filay aad ka gaabisay, ama aad ilowdo qof ahayd inaad xusto iyo gaf kasta oo kaa dhaca. Iska jir inaad isla munaasabadda ama fadhiga dhexdiisa ku celceliso waan ka xumahay, waa qaldamay iyo ereyada la midka ah. Hal mar sida ugu quruxda badan uguna anshaxa fiican raaligelinta u bixi. Kadib uga gudub hadallada kale ee ku yaala mar dambana dib ha u eegin. 2. ammaanta badan. Dad badan ayaa dhaqan u leh inay ammaan kala daalaan ruuxa ay xurmada u hayaan ama sarriintiisa ay u qirayaan. Qofka ammaantiisa aad ku tarax tagtaa waxay burburisaa kalsoonida ay tahay inaad naftaada ku qabto. Markastoo aad ku tarax tagto ammaanta iyo bogaadinta qof kale waxay maskaxdaada qaadataa dareen ah inay naftaada barbar dhigto wanaagga iyo ammaanta aad qofkaas ku sheegayso. Waxaana ka dhasha aaminsanaan nafsadeed oo ah inaad adigu dhinaca taban iska aragto, dhaliishaada iyo meelaha aad ku lidatana ay ku hor yimaadaan. Waxay keentaa dabeecada inaad markasta qof kale isku dhereriso. Marka aad aragto meelaha aad ku hooseysana waxaa kuu bilaabanaya xaalad kalsooni darro aad naftaada ku qabto. 3. ku tarax tagga oggolaanshiyaha aragtiyada kale. Haddii aad ka baqato ka hormaanshiyaha aragtiyada aad diidan tahay, doodayo inaad si kalsooniha u sheegto doodaada diidmada ah, waxaad ku dambeynaysaa inaad noqoto shakhsiyad jilicsan oo si fudud isugu dhiibta dadka kale doonistooda. Waxaad is arkaysaa iyadoo ay isaga kaa xirmaan kalsoonida aad naftaada ku qabayso iyo heerka oggolaanshiyaha aragtiyada dadka kale. Weligaa iska jir in qabkaaga kuu diido qirashada aragtida kaa saxan iyo fikirka aad u bogto. Laakiin ka dheerow cudurka inaad ku dhici weydo diidmada aragtida aad ka biyadiidsan tahay ama qof kale aad kaga duwan tahay. Haddii kale u diyaargarow dhimashada kalsoonida naftaada. 4. ku mashquulida iimahaaga ama ceebahaaga yaryar. Waxyaabaha kalsoonida naftaada burburiya waxaa ka mid ah qofka oo caadaysta dabeecadda ee xeeladayaasha cilmi nafsiga afka Ingiriiska ku yiraahdaan spotlight effect. Waa naftaada aad ka dhaadhiciso in dadka ay diiradda kugu hayaan, gaar ahaan marka ay kaa dhacaan gafaf ama arrimo aad wajgabax u aragto. Wuxuu qofku isku weyneeyaa aadna u boonboonayaa hanaanka ay dadka ku xiran u arkaan ama u qiimeeyaan ceebihiisa. Tusaale ahaan, haddii uu munaasabad yimaado isagoo aan muuqiis la dhacsanayn, timaha aan sidii saxda ahayd u qurxin ha ahaato, ama labiskiisa u arko in dadka kale uu ka liito iyo wax la midka. Kadib waxaa ku abuurmaya walbahaar iyo xasillooni la'aan nafsadeed oo ka dhalanaya warwarka uu ka qabo waxay dadka kale ka dhihi doonaan. Dabeecadani waa cudur dila kalsoonida nafta ee dhaqso naftaada uga dawey. Ugu dambeyntiina, cidna naftaada ha la barbar dhigin oo ha isku dhereerin. Cidda kaliya ay tahay naftaada ku dhereerisaa waa naftaada. Markasta oo aad isku dhereeriso qof kale, waxaad daawacaysaa qiimaha shakhsiyadaada, waxaadna dilaysaa kalsoonidii ahayd inaad naftaada ku qabto. Inaad qof kale naftaada la barbar dhigta ama isku dhereerisaa waxay ka dhigan tahay inaad naftaada aad u sheegayso inaanay u qalmin inay arrintaasi gaarto ama ka miro dhaliso. Marka loo eego qofka kale aad isku dhereerisay ama naftaada la barbar dhigatay oo aad u aragto in qofkaas uu yahay qofka kaliya ee guusha keeni kara. Natiijada u dambaysa ee ka dhalatay inaad naftaada nafka la barbar dhigtaana waa inay dhimato kalsoonida naftaada.